runtii wanaagsan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecel nahay halkani waa xogta suuqa media oo alaab aad kala socotaan Facebook, Twitter, TikTok iyo YouTube. Dhegeystayaal toddobaadkan waxaynu soo qaadanaynaa sheeko la yiraahdo Macdigaaba Aasay. Waa sheeko yaab leh. Sheekadan waxaan qoray 22kii bishii 3aad 2013 anigoo jooga caasimadda dalka Djibouti. Sheekadu waa sheeko mid si weyn oo maaldahan markaana bixinaysa fasiraado kala duwan. Waxayna banaanka soo dhigaysaa waxyaabo aad iyo aad u fara badan markaana ka socda dalkeena hooyo kuwaasoo aan wari la isla fahmin halka ugu dambaysa. Sheekadu mar waa sheeko qaraaxa badan, mar waa sheeko naxdin badan, mar waa sheeko kusoo gabagabowaysa yaab iyo amakaag xanuun badan. Marka aad dhamaysato sheekada waxaa kugu dhalanaya su'aalo aad iyo aad u fara badan kuwaasoo qaarkood kugu reebaya cuqdad ama shaki aad iyo aad u ballaaran, halka kuwa qaarkood ay kugu dhalinayaan kalsooni darro aad u weyn. Ugu dambeyn ay kugu dhalinayaan quus. sheekadan ayaa waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Nin maalqabeen ah oo tuur leh ayaa guursaday gabar ka mid ah gabdhaha magaaladii uu ku noolaa ugu diiqsanaa ama ugu quruxda badnaa, wuxuuna ku bixiyey hanti fara badan. 3 ka mid ah ragga tuurta leh ee ku nool deegaankii isaga uu ku noolaa oo ka quustay noloshooda in ay guursadaan ayaa u tagay gabadhii quruxda badnayd, waxayna ka codsadeen in ay u doonto mid iyada oo kale ah. Muddo kadib gabadhii waxay u sheegtay saddexdooda in ay weysay gabar sideeda oo kale oo dadka tuurta leh jecel. 3dii tuure way ku qanci waayeen jawaabta gabadhii. mid kasta wuxuu la soo booday qorraxdan iska furka hadda ku qaba, annaga ka qurux iyo raganimo badan. gabadhii mid kasta waxay ka ogolaatay dalabkiisa maadaama aysan ku qancaynin wax kasta oo ay u sheegto. mid kasta waxay u qabatay waqti gaar ah oo misana hal habeen ah. mid waxay ballamisay 7 habeenimo ama 1 saac fiidnimo, qofka sida uu u yaqaano. kii labaad waxay ballamisay 8 habeenimo ama 2 saac fiidnimo. kii saddexaad waxay ballamisay 9 habeenimo. gabadhii waxay diyaarsatay 3 kabadh ama sanduuq nooca dharka dhaadheer ee qamiisyada oo kale la suro oo misana korka kale laga xiri karo. kii ugu horreeyay markii uu u yimid way soo dhaweysay sida ugu sheekaynaysay ayaa kii lala ballamay ee 2 saac habeenimo albaabka soo garaacay. waxayna ku tiri, allah ninkaygii ayaa yimid, halkan gal oo ku soo xidh. hadda ogow waxay ku soo xidhay waa kabadh ama sanduuq armaajo oo kale ah oo korka kore albaab kale qufulna kale meel laga neefsada aan lahayn. kii labaad sida ugu sheekaynaysay ayaa waxaa albaabka soo garaacay kii saddexaad oo 3 saac habeenimo la ballamiyey. waxayna ku tiri kii labaad, allah ninkaygii ayaa yimid, halkan gal oo ku soo xirtay. hadda ogow waa kii labaad meesha kale lagu soo xirayo. kii saddexaad sida ugu sheekaynaysay ayaa waxaa u yimid ninkeedii runta ahaa, waxayna u sheegtay isla sidii hore oo kale, allah ninkaygii ayaa yimid, halkan gal oo ku soo xirtay. 3dii nin markii ay ku xirtay ninkeedii ayay aqalka la gashay oo dib uma soo noqon. oo 3dii tuure ayaa sidaas waagu ugu baryay. markii uu waagu baryay oo ninkeedii iska baxay ayay soo xasuusatay oo kii ugu horreeyay ayay ka furtay mise waana waabamay. kii labaad sidoo kale, kii saddexaad sidoo kale ayaa ku caddaatay. waxayna u yeertay nin xoog leh, waxayna u sheegtay wixii dhacay, waxayna kula heshiisay xitaa in ay nafteeda u hubeynayso lacagna ay ugu darayso haddii uu qariyo. ninkii xoog weyne ahaa intii uu maqnaa ee godqodista uu ku maqnaa waxay diyaarisay raggii tuurayaasha ahaa dhar isku mid ayay u gelisay, kadibna u diyaarisay hab uusan fahmayn. ninkii xoog weyne ahaa kii ugu horreeyay ayuu qaaday, isagoo wuxuu u malaynayaa in mid keliya uu yahay oo uu soo aas. wuu u yimid wuxuuna u sheegay inuu soo aas. iyadii ayaa waxay ku tiri, Macdigaaba aas. intii uu yaabay ayuu qaaday kii labaad, kadibna soo aasay oo wuu soo noqday. waxayna soo diyaarisay kii ugu dambeeyey ee saddexaad oo noqday kii ugu yaabka badnaa. markii uu u yimid ayaa waxay tustay kii saddexaad oo waan soo aasayba sida wax u jiraan ayuu yidhi isagii. iyadii waxay la soo booday, haddaba ma anigaa keenay oo ma adigaa soo aas ayay mar kale ugu celisay. isagii kii saddexaad buu qaaday, inta googooyey oo faas la dhacay, kadibna badda ku riday oo iska soo noqday. markii uu reerka ku soo dhowaaday ayaa wuxuu arkay ninkii reerka ee tuurta lahaa 3 tuure aasi. inta qeyliyey ayaa wuxuu yidhi, ii qabtaay 3 jeer baan soo aasay, markii afraad isagoo guriga sii gelaya ayaan arkay oo u ceersaday. ninkii tuure ahaa waa warbooge, orod ayuu isku sii xabshay, kadibna gurigii buu galay. kii xoog weyne ahaa inta lala yaabay ayaa la qabtay oo la xiray. dalka iyo dadka Soomaaliyeed in muddo ah waxaa ka socdo sheeko sidan oo kale ah ilaa la helo xoogweynayaasha shaydaanku ku adeegto wax ka qabta dadka dalka iyo dad madagayaan. mahadsanidin. Maxamed Macalin Ismaan, Allman, Minneapolis, Minnesota, USA.
قرشي وناك قدبتي قعالي وحقان وزيك قرشي وناك قدبتي قعالي وحقان وزيك قدكي جعلتها قدكي جعلتها وانت بدكتي وريا السماء لهايو قدنون لهايو وريا السماء لهايو قدنون لهايو قبسن معي وحنقو عاليا إن اللبا كيانو سفقرتا نغني سفقرتا قبسن معي وحنقو عاليا إن اللبا كيانو سفقرتا نغني سفقرتا قبسن معي وحنقو عاليا إن اللبا كيانو سفرتا نغني